marxaladii aan doorashada ku jiray oo 2 sano campaign ku jira waxa iga cuslay bishii aan soo xulay golaha wakiilada wasiirada waxay ahayd arrin aad u adag inaan iswaafajiyo kelmadeedii saldhig u ahayd doorashada oo ahayd tayeynta iyo inaan soo dhiso xukuumad kooban iyo baahida loo qabo in golaha wasiirada laga mid noqdo aad bay u adkayd in la iswaafajiyo arrintaas waxa kale oo aad u adkaa si aan tayadaas uga miro dhaliyo inaan isla helo wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ama wasiiru dawlaha ku habboon wasaaradda uu khibradda u leeyahay waxaan la yeeshay kulamo inta halka fadhida iyo in badan oo kale oo aan filaayo dadka aan baarnay inaan golaha u xulanno inay 300 kor u dhaafayeen kuwa dalka gudihiisa joogo badnaa iyo kuwa badan oo dalka dibaddiisa aan ka wada hadalnay waxaan aad uga cudur daaranayaa intii jecelayd inay golaha ka mid noqoto oo fursad u maasaabixin macnaheedu ma ahayn inaynan u qalmin macnaheedu ma ahayn inaysan karti u lahayn inay shaqadaa qabtaan laakiin inta la doonayo koobnay wakhtigoo aad u adkaa waxaa ilaahay solon siiyey intaas inay noqoto intii nasiibka u heshay inay ummaddooda u shaqeeyaan runtii waxyaabaha tirada golaha wasiirada oon jeclaa inay intaan ka yaraadaan badiyey baahida dadka reer Puntland qabaa'ilkooda ay u qabaan inay golaha ka dhex muuqdaan oo runtii aan aad uga xumahay in macnihii golo wasiiro uu halis ku jiro oo u muuqatay meel laga dheehdo inuu qabiilkaas halka degan yahay macnahaas waa macna halis ku ah mustaqbalka ee dawladnimada Soomaaliya 20 sano kadib in dadka reer Puntland sidii dawladda heshiisiina inay iska wada dhex arkaan in la doono runtii waa culays halis ku ah in bulshada Puntland loo shaqeeyo waxa aad igu soo badbadatay kelmadda cadaaladda in wasiirada reeraha loo qaybiyo cadaaladda sidaa maaha cadaaladdu waa inay mujtamaca gaartaa shaqada ay u baahan yihiin service ay u baahan yihiin dadka u shaqeynaya inay si cadaalad u garsoonaan taasaa anigu arkaa inay cadaalad tahay laakiin golaha wasiirada in laga wada mid noqdo macnahaas waa macno khalad ku ah inay tahay cadaaladda sidaas waxaan boorinayaa dadka reer Puntland inay dib u fiiriyaan shaqada wasiirnimada waxa ay tahay oo ah hay'adda fulinta ee u shaqeynaysa inta badan ee bulshada ah waxaa arkaysaan oo qorshahay ka mid ahaa inay wasiiru dawlayaashu ay yaraadaan ama aysan jirin laakiin waxaan ka maarmi waayey shakhsiyaad aan u arkay inay tahay asad ummaddan ay leedahay oo runtii wasaaradaha aan ku magacaabay badankooda ay khibrad dheeriya u leeyihiin in dalka inay Puntland ay seegaan dadka noocaas